wacan wanaagsan daawadayaal idilhaantiin baa meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa bandhiga TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada xilligan wararkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ka qoostay rajada kursiga Fahad Yaasiin iyo booskiisii gudoonka golaha shacabka oo ay Villa Soomaaliya u diyaarisay shakhsi nabad iyo nolol ah haddaba miyuu madaxweyne Farmaajo dhisi doonaa qadiijo diiriye oo aan lahayn salfadhi siyaasadeed wararkii ugu dambeeyay Saciidani oo si toos ah Muqdisho uga bilaabay ololihiisa doorashada xildhibaanadii ugu badnaa oo uu qaabilay iyo xog laga helay qorshihiisa cusub ee doorashada maxkamadda sare ee dalka oo maanta u fariisatay dhageysiga dacwadda kursiga Fahad Yaasiin xilli maxkamaddu saacadaha soo socda ay ku dhawaaqayso go'aan ka farxin kara Fahad Yaasiin balse aan waxba u tarayn qodobada kale waxaa kamid ah murashaxiintii ugu badnaa oo maanta isku diiwaan galiyay jagooyinka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo Villa Soomaaliya oo uu xaalku ku xun yahay iyo madaxweyne Farmaajo oo si qiiro leh kaga hadlay dilkii shalay loogu geystay magaalada Muqdisho nabadoon bedel jaamac oo ahaa nin si weyn u taageeri jira madaxweyne Farmaajo qodobadaas ayaad ku daawan doontaan wararka bandhiga TV waa talaado taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 4 ee Abriil sanada 2022 aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in uu aad uga qoostay rajadii uu ka qabay kursiga Fahad Yaasiin ayaa kursigiisa waxaa ku dhagan guddiga doorashooyinka VID oo iyagu markaasi garab weyn ee ka haysta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble oo isagu markii horeba arrintaani ka dambeeyay madaxweynaha ayaa doonayay in Fahad Yaasiin uu qayb ka noqdo gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya balse rajadaas meesha ayay hadda ka baxday haddaba xogo hoose oo aynu helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu wado qorshe uu markaasi isku badbaadinayo isla markaana gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka uu ku siinayo qof ka tirsan ee nabad iyo nolol warar aan sidaasi u buurnayn ayaa sheegaya in Villa Soomaaliya ay suurtagal tahay in ay dhisto Khadiija Maxamed Diiriye oo nabad iyo nolol ah balse iyadoo aan lahayn salfadhi siyaasadeed oo hadba dhinac u boodaysa xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa shaacisay inay tahay murashax u taagan kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kursiga xildhibaanad Khadiija ay ku dhawaaqday inay u tartamayso ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay midka uu sida aadka u doonayo Fahad Yaasiin oo weli aanan helin shahaado xildhibaanimo Khadiija Diiriye ayaa qoraal ay soo saartay boggeeda Facebook ku tiri kadib markaan talo soo jeedinta saaxiibadeeda siyaasadda aan ku talownay aniga oo dareensan in hore loo dhaqaajiyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka waxaa laga bilaabo caawa soo bandhigaya murashaxnimadeeda gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka 11 ee Soomaaliya Khadiija iyo Fahad Yaasiin ayaa aad isugu dhow waxaana la ogeyn in talaabada ay ku shaacisay murashaxnimadeeda ay tahay siyaasad in Fahad Yaasiin ka qoostay inuu helo kursiga laga hakiyay sidaas daraadeedna uu arkay in Khadiija Diiriye oo booskii uu baneeyay inay markaa buuxiso xildhibaanad Khadiija Diiriye ayaa caan ku ah isrogroga siyaasadeed waana sababta keentay in ay 5 jeer soo gasho baarlamaanka iyadoo xilligan ay ka mid tahay taageerayaasha Villa Soomaaliya warar kale ayaa sheegaya in Khadiija Diiriye ay hadda kursigan qaadanayso isla markaana marka kursiga Fahad Yaasiin la fasaxo baarlamaanka soo galo ay markaasi uga tanaasuleyso xilkaas iyadoo oo markaa iska casilaysa xilkaas markaasna la dhisayo Fahad Yaasiin doorashadii baarlamaankii 11aad ayay sidoo kale waxa ay ka mid ahayd murashaxiintii aadka loogu saadaalinayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyadoo codadkii ay heshay ugu shubtay Cabdiweli Muude oo hadda baarlamaankan ka tirsanayn dhinaca kale waxa xilkan isu soo taagay xildhibaan Maxamuud Cabduqaadir Jaago iyo xildhibaan Maxamed Cali Cumar Caananuug kuwaas oo shaaciyay inay u taagan yihiin tartanka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka waxaana uu noqon doonaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mid aad loogu loolamo oo xitaa ka xiisa badnaan doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kalena haddii aynu fiirino magaalada Muqdisho oo xoog leh ayaa ka socda Saciidani ayaa markaasi soo gaaray Muqdisho waxa uuna wadaa qorshe cusub oo ku saabsan ololihiisa doorashada madaxweynaha Puntland ahna murashax u taagan Villa Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ka soo galay Puntland sida markaasi ay sheegayaan in la wareejiyo aad loogu kalsoonaan karo madaxweyne Dani oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu xildhibaanada kala hadli doono doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo habka ay u wajahayaan rabitaanka koobaad ee Dani ayaa ah in xildhibaanada ay codkiisa siiyaan isaga balse xogta aan helnay ayaa sheegaysa inuu sidoo kale kala hadli doono murashax ay u codeyn doonaan haddii uu ku haro wareegga koobaad ama kan labaad ee doorashada Dani ayaa soo saartay ilaa 40 xildhibaan wuxuuna sidoo kale isku haleynaya xildhibaanada ka soo galaya Jubbaland ee uu soo saaray saaxiibkiisa siyaasadda Axmed Madoobe taasi oo siinaysa taageerada ku dhawaad 60 xildhibaan ase yeeshee tiradaas kadib ayaanan cadayn sida Dani uu xildhibaano kale ku heli doono iyada oo sanadkan la rumaysan yahay in
ugu yaraan 5 murashax ay heli karaan ku dhawaad 50 cod iyo ka badan wareegga koobaad ee doorashada. ma cadda murashaxa uu Dani taageeri doono haddii uu haro, balse waxaa la hubaa in uusan ahayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama uu hore u sheegay in sababta ugu weyn ee uu isku soo sharxay ay tahay inuu kursiga dhaafiyo madaxweyne Farmaajo. horey waxaa u jiray in Dani la rumaysnaa inuu taageerayo Xasan Sheikh oo aad isugu dhawaayeen, balse hadda xiriirkoodu ma wanaagsana sidii horena ma aha kadib markii uu qaatay Dani go'aan uu isugu soo sharaxay villa Soomaaliya. kulanka Dani isugu yeeray xildhibaanada ayaa imaanaya iyadoo ay jirto inuusan weli hayn dhaqaale ku filan oo doorashada uu ku galo, kadib markii dowladda Imaaraadka Carabta oo uu isku haleynayay u sheegtay in aysan taageeri karin sida markaa xogaha gaarka ah aynu ku helnay. waxagaag weli wararkeena ayaad la socotaan saaxiibayaal. maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadda markaasi kursiga Fahad Yaasiin. maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta si rasmi u guda gashay dhageysiga dacwadda uu gudbiyay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin, taas oo la xiriirta kursiga loo doortay ee Hob 86 kadib markii guddiga FID ay kursigaasi ku dhageen. dooda ayaa bilaabatay maanta waxaana ay ahayd mid markaasi lagu dhageysanayay dhinacyada dacwadda ay u dhaxaysay, iyada oo maxkamaduna ay sheegtay inay go'aan ka soo saarayso. hoolka ay ka socotay dooda oo ahaa mid faaruq ah ayaa la xadiday dadka ka qaybgalaya dhageysiga dacwaddan oo ah mid xasaasi ah marka laga reebo qareenada difaacaya Fahad, kuwa u doodaya guddiga FID iyo guddoonka maxkamadda sare ee dalka. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Axmed Yuusuf ayaa soo xiray fadhiga maanta, waxaana sheegay inay maxkamaddu dib ka soo saari doonto qaraar ku aadan kursigaasi. maxkamaddu qaraar ayay ka soo saari doontaa insha Allahu tacaala. haddana maxkamadda waa ay inoo xiran tahay ayuu yiri gudoomiyuhu. maxkamadda sare ayaa 10kii bishan Abriil xaqiijisay inay qabatay gal dacwadeed uu soo gudbiyay la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo Fahad markaasi Yaasiin kala yiraahdo. Fahad ayaa ka dacwoonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo sharci darro ku tilmaamay doorashooyinkii kursiga uu Fahad markaasi ka soo qaatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee 86. maxkamadan ayaa waxaa gudoomiye ka Baashe Yuusuf Axmed oo ah nin aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo. siyaasiyiin badan ayaana markaasi kiiskan isha ku haya, iyagoo qabatuhun ah in maxkamaddu ay fasixi doonto kursiga. hase yeeshee gariiqaanka guud ee dowladda ayaa isagu ayiday go'aanka guddiga FID ay ku hakiyeen kursiga Fahad Yaasiin. xafiiska gariiqaanka guud ayaa difaacay awoodaha iyo sharciyada guddiga doorashada, wuxuuna sheegay in guddiga awoodiisu tahay inuu mas'uul ka yahay guud ahaan kormeerka hanaanka doorashada iyo xaqiijinta inay si isku mid ah u dhacdo hanaanka doorashadu iyo markaasi dabagalka fulinta hanaanka lagu heshiiyey ee qabsoomida doorashada. qaybaha dambe ayaynu isla soo gaarnay magaalada Muqdisho. maanta waxaa ka qabsoomay kulamo ay isku diiwaan gelinayeen murashaxiinta u taagan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. xubno dhowr ah ayaana markaasi iska diiwaan geliyay kuraasta guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. murashaxiinta ugu horeeyay ee la diiwaan geliyay ayaa waxa ay maanta noqdeen Sheekh Aadan Madoobe oo u tartamaya gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaan Maxamed Cumar Caana Nuug oo u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka. dhinaca kale guddiga doorashooyinka aqalka sare ayaa iyaguna dhankooda wada diiwaan gelinta murashaxiinta gudoomiyaha iyo markaasi labadiisa ku-xigeen oo u taagan yihiin murashaxiin fara badan. muddo 3 cisho ayay socon doontaa diiwaan gelinta murashaxiinta guddoonka labada aqal, waxaana ugu soo horeeya doorashada guddoonka aqalka sare oo la qabanayo 26 bishan, halka marka maalinta xigta 27 la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka. Aadan Madoobe iyo xubno kale ayaana markaasi la sheegaya inay yihiin xubnaha markaasi saameynta leh ee ka qaybgalaya doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si qiiro leh uga hadlay dil shalay magaalada Muqdisho loogu geystay Allah u naxariistay abwaan bedel Jaamac Xirsi, kaasi oo ahaa shakhsi si weyn u taageeri jiray markaasi madaxweynaha. waxaana madaxweynuhu tacsi u diray waliba tacsi tiiraanyada qoyska iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay abwaan Soomaaliyeed bedel Jaamac Xirsi oo dil markaas xaqdarro ah loogu geystay magaalada Muqdisho. madaxweynuhu waxa uu sheegay in bedel uu ahaa shakhsi markaasi uu ka wacyi gelin jiray bulshada aafada qabyaaladda, kala taga iyo ay xumada colaadaha. waxa uu mar walba ku baraarujin jiray buu yiri madaxweynaha taageerada dowladnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. waxaan xanuunka tacsida la qaybsanaya ehelka iyo marxuumka dhammaan ummadda Soomaaliyeed buu sii yiri madaxweyne Farmaajo oo arintaasi si murugo leh kaga hadlay.
warkii intaas ayuu inooga dhan yahay saaxiibayaal warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.